wararka ka imaanaya magaalada Jigjiga ee xarunta maamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in mudaharaado xoogan ay ka socdeen maalintii shalay tole mudaharaadka ayaa ahaa mid lagaga soo horjeedo ciidamada federaalka Itoobiya oo gudaha u soo galay magaalada Jigjiga dadka ku nool magaalada ayaa ku waabiristay ciidamada federaalka Itoobiya oo ku gaashaaman hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka dagaalka ciidamada ayaa la wareegay xarunta madaxtooyada baarlamaanka iyo TV-ga ku hadla afka Soomaalida maamulka Itoobiya ilaa iyo haatan lama oga meel uu ku sugan yahay madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar wararka qaar ay naga soo gaadhay deegaankaasi ayaa sheegaya inuu ku sugan yahay xaram ciidamada liyu boolisku ku leeyihiin meel ka durugsan magaalada Jigjiga maalintii shalay waxa saacado kooban laga jaray magaalada Jigjiga biyaha korontada iyo khadka telefoonka ee la isku xiriiro dadka mudaharaadaya ayaa gubay kaniisad weyn oo ku taala magaaladaasi waxaana goobaha qaar ka dhacay biliqaystay qowmiyadaha kale ee aan Soomaalida ahayn si kastaba ahaatee dhacdadan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ay ku kala aragti duwan yihiin ra'iisul wasaaraha federaalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madaxweynaha maamulka Soomaalida Itoobiya kheyraadka shidaalka ee laga helay deegaanka Soomaalida qoondada ay u yeelan lahayd maamulka Soomaalidaasi oo ra'iisul wasaaruhu sheegay inay 5% lagu horumarinayo deegaanka laga soo saaray shidaalka